waxaa noo qada dhigaya qodobkani qadar cabdullaahi. ra-iisul wasaaraha qaranka jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay Villa Soomaaliya oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta waqtigan. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in markii asaga iyo madaxweynaha qaranka ay talada dalka la wareegeen ay halkan ugu yimaadeen ama ay ku arkeen dhaqan xun oo laga aaminsan yahay siyaasadda oo ah in siyaasadda lagu raadiyo dhaqaale balse ceeb ay tahay in siyaasadda waxna lagu dhiso waxna lagu hormariyo. halkan waxaan ugu nimid dhaqana in dawladnimada laga qowleysto dawladnimadu inay qowleysato tahay inaad dhulka dawladda ku takrifali kartid inaad sara dheer ka dhisan kartid in markaa meesha sarta dheer aad ka dhisatay oo la ogyahay aad inaad soo xaday lagugu yimaado lagugula xafladay waa dhaqanka aan halkan u nimid. ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dhaqankaasi siyaasadeed ay haatan wax badan iska bedeleen sababtoo ah ayuu yiri in markii hore dhaqaalaha dalka lagu hormariyay ay siyaasiyiinta qaar u aqoonsanaayeen wax ceeb ah siyaasaduna ay ahayd sideed dhaqaale ku heli kartaa. waxaan u nimid in siyaasadu ay tahay meel adan gaar ah lagu raadiyo sidoo kalena waxaan u nimaanay ayuu yiri dhaqan ah aan mar siyaasi noqdo si aan u helo dhaqaale ayuu yiri ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. si dhaqankaasi u jiro marka siyaasadda aan dalka ugu nimidna waxay u dhigtay isbaarooyin waaweyn oo ka soo shaqeynay ku dhawaad 2 sano la soo dhaaf. waxa kamid ah in laga shaqeeyo in madaxda dalku aanay wada shaqeyn in wasiirku uusan shaqadiisa daacad u ahaan laakiin dan gaar ah uu daacad u noqdo in la waayo madaxweynaha ra'iisul wasaare wada shaqeyn kara in shuruuc in la ansixiyo ay ka muhiimsan tahay in wax la dumiyo waa xaqiiq dhaqanka aan dalka ugu nimid. hadalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa imaanaya iyadoo dhawaantan ay ahayd markii kooxa isugu jira madaxdii hore ee dalka soo maray iyo kuwa kale ay Muqdisho kaga dhawaaqeen xisbi ay ku sheegeen madasha xisbiyada qaran kaas oo xoog ay ku saarayaan damacooda siyaasadeed ee kaga aadan mustaqbalka sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka la filayo 2021 in ay ka dhacdo dalka Soomaaliya. Qadar Cabdullaahi.